15 daqiiqo kaliya isbuuci 2 maalin haddii aad wejigaada marsid muxuu ku siinayaa dhalaal, iftiin iyo qurux waadna uga maarmaysaa inaad isticmaasho waxyaale kiimika ah. Wuxuu leeyahay inuu wejigaada qurux ka dhigo, inuu caddeeyo, waxa kaleetuu leeyahay inuu kaa saara nabraha madmadowga. Marka maxaa idin leeyahay insha Allah haddii aad alaabtan isbuuci 2 mar 15 daqiiqo kaliya facekaada aa marisid waad iska arkaysaa waadna dareemi doontaa biidnillah. Waana wax dabiiciya oo jikadaada ku yaalo fudud aad iyo aadna u fudud. Hadda maxaa idin leeyahay insha Allah wax walba waxay ku xiran tahay inuu qofka aamino. haddii aad aamintid waad ku qurux badnaanaysaa, laakiin haddaad kiimika aaminsan tahay weligay allaha ma qurux badnaanaysid, waxaad noqonaysaa qof aad iyo aad u bahdilan. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan waa islaam inta ku xiran janalka Karin Qurxin. maanta maxay idiin wadaa 3 shay oo hortiina ka muuqdo, kaasoo aan isticmaalayna face pack ama scrub ahaan oo kaleento, kaasoo la isticmaalaya isbuuci 2 maalin oo kaleento. markaa ratid isbuuci maalinka u horeysa maalinka u dambaysa kala ka dhigan kartaa. waxaan haysanaa sida ujeedid coffee iyo cafe oo Nescafe ah, malab iyo huruud yariis ah. 3 shay waa 3 shay oo mucjiso ah. haddii dad waxaa jira qaarkood oo huruudda ee dhibto, haddii huruudda ku dhibayso waa iska dhaafi kartaa, laakiin maasha Allah huruud dadka aad iyo aad qurux ayay siisaa, nabrahoo kaleeto way qalajisaa. dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay xasaasiyo ku yihiin ee ayadaba nabar ka soo horta, laakiin haddii huruudda ku dhibayso iska reeb. malabka iyo koofiga ayaa isticmaali kartaa. malabka koofiga ayaa marka hore soo furta maxaan ka isticmaalaa in yar, waa wax yar oo markaas kugu filan oo kaleento ayaa isticmaalaysaa. markii aan malabkiisa oon huruuddii aan ku shubay koofigii saxanka kadib maxaan ku shubayaa huruud aad iyo aad u yar oo qaadada yacni qaybta afkeeda horeeto kaleeta huruud yariis ah waaye. kadib markii aan huruudda ku shubo marka wax yar ayaan isku qasqasayaa huruuddii iyo waxaan isku qasayaa muxuu ahayd kafeegii. markii aad isku qastid kadib maxaan ku daraysaa 1 macalgo oo malab ah. maasha Allah alaabtan waa alaab aan caadi ahaynin, qurux ku siinayso, dhalaal ku siinayso. qofkii tijaabiyey ama yaqaano unbaa yaqaan. wax walba waxay ku xiran tahay sidaa u aamintid iyo sida isaga dhaadhicisid. haddii aad iska dhaadhicisid way kaa dhaadhacsanaan woona ku qurux badnaysin, laakiin haddaadan iska dhaadhicin weligaa laha ma ku qurux badnaanaysid. marka maxaa dhihi lahaa insha Allah wuxuu 100% ka wanaagsan yahay, ka manaafacaad badan yahay, yacni kana fiican yahay waxyaalaha kiimikada ama gasacyada ku jiro kaleeto. ayagana horta lagama maarmo oo scrubyada gasacyada ku jiro kaleeto marmarka qaar waa la isticmaalaa, laakiin haddana maxaa fiican inaa kuwan aad iyo aad u badsatid oo kaleeto oo freshka ah, maadaama ay kiimika ku jirto. yacni waxa intaas gasaca ku jiraayo kaleeto waxa ku jiro wax ka ilaalinayo inuu yacni hallaabo kaleeto. waxyaalahaas wejigaada waxaa laga yaabaa inuu dhib u keeno. marka maxaa insha Allah ku dadaala waxyaalaha dabiiciga ayagana marmar dhaxgashta biidnillah alkariim. alaabtan marka maxay ku siinaysaa indhaha hoostooda madmadowga kaleento, nabraha kale way qalajisaa, wejiga way toobtaa, way qurxisaa, dhalaalay ku siinaysaa. wejigaada hadduu oil yahayne oilkaas ayaa kaa saaraysaa. isbuucina 2 jeer ayaa u baahan tahay inaad maristid. keliyana waxaa ka isticmaalaysaa 15 daqiiqo oo keliya. yacni sidaa saaka u marsatid galabta kama dhaqaysid, yacni waa bixi rabtaa oo kale banaanka oo kaleeta u bixi rabtaa, waxaa rabtaa inaad wax wejiga ku dhaqtid, qaybtii aad saabuun ama face wash ugu dhaqan lahayd asagaasaad dhac ku siisanaysaa, kadibna waad iska dhaqaysaa. markaa iska dhaqdi maasha Allah hortaada usii soconaysaa. yacni 15 daqiiqo oo keliya, 20 daqiiqa ha ku ahayn, saacad ha ku ahayn, ma u baahnid. 5 daqiiqo 3 daqiiqo 10 15 daqiiqo ugu badnaan intaasaa loogu talagalay kaleeto. scrubyada xitaa saasoo kale u isticmaalo, waxaa arkaysaa qof saaka inuu scrub marsadoo kaleeto galabta iska dhaqaayo. yacni asaga scrubka naftirkiisa maxaa ku qoran 15 daqiiqo 10 daqiiqo, yacni intaasoo saac waxaa ugu haysidaaba qalad eh. qof waxaa arkaysaa inuu iska marsada magaalka iska soo wareegayo, yacni saaka inuu marsada qoraxdii iyo wixii ay kula dhacayso. waxyaalahaasoo kaleento waa waxyaalaha wejiga dadka ka hadlaya. marka insha Allah haddii aad marstid oo kaleeto 15 daqiiqo kadib iska dhaq. kana sidoo kaleeto asagana maasha Allah aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay insha Allah. fadlan waxaa laydinka codsanaya haddii ay tahay markii ugu horreysay janalka Karin Qurxin aad soo booqatid subscribe saar, beelkana on ka dhiga biidnillah alkariim. waxaan idinkaga tagaa insha Allah inaad videoga sii share garaysaan. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaaw janalka